Laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa waxa ay soo aadeen xeebta. Waxa ay hore u soo qaateen casho si ay meesha ugu caweeyaan. Intii ay ku guda jireen cunista cashada, waxa uu imaatay haweeney waayeel ah. Waxa ayna bilowday in ay dhulka ka qaadato cuntada wiilashan dhulka uga daadata, kadibna ay cunto. Mid ka mid ah wiilasha dhalinyarada ah ayaa waxa uu weydiiyay haddii ay baahan tahay. Waxa ayna ugu jawaabtay, halkan waxaan joogaa ilaa saakay, mana helin wax aan cuno ama aan cabo. Waxa meeshaan i keenay wiilkayga, waxa uu i fadhiisiyay halkan, waa uuna iga tegay. Waxa uuna ii sheegay inuu soo noqonayo, uuna iga wadi doono meeshaan wax yar kadib. Wiilashii dhalinyarada ahaa waxa ay siiyeen haweeneydii cunto, waa ayna cuntay. Markii la gaaray saqdii dhexe ee habeenka, qabowgiina uu soo batay, wiilashii waxa ay urursadeen alaabadoodii, waxayna isku diyaariyeen in ay baxaan. Labadii wiil ee dhalinyarada ahaa waxa ay istusiyeen in aysan suuragal u ahayn in habeenkan qabowga ah xilligan dambe ay haweeneydan waayeelka ah meesha uga tagaan, weliba iyadoo kaligeed ah. Mid ka mid ah wiilasha ayaa waxa uu weydiiyay haddii ay taqaano taleefan laga heli karo wiilkeeda si ay ula xiriiraan oo uu meesha uga kaxeeyo. Waxa ay ugu jawaabtay, wiilkayga waxa uu igaga tegay warqadan oo uu iigu qoray taleefankiisa. Waxayna u dhiibtay wiilashii dhalinyarada ahaa warqadii. Waxa uu la yaabkii ugu weynaa u dhacay markii ay wiilashii akhriyeen waxa ku qoran warqadda. Waxa uu warqadda ugu qoray, qofkii arka haweeneydan ha geeyo meesha lagu xanaaneeyo waayeelada. Saacad ayay wiilashii dhalinyarada ahaa baryayeen maamadan si ay u geeyaan meel aamin ah ama meel allaale meesha ay iyadu doonayso, laakiin waa ay ka diiday. Maxaa yeelay wiilkeedii ayaa waxa uu ka ballan qaaday in uu soo noqon doono, mana doonayso in ay meesha ka tagto si wiilkeedii uusan ugu daalin raadiskeeda. Markii uu meesha yimaado oo uu iyadana ka waayo, laakiin iyada ma aysan ogeyn in wiilkeedii uu dayacay. Waxayna ahayd mid ku celcelisa, wiilkaygii waa uu soo noqon doonaa, waa uuna i kaxayn doonaa, waxaana halkan ku sugayaa imaanshihiisa. Markii haweeneydii ay diiday dhammaan isku day kasta ay sameeyeen wiilasha si ay u raacdo iyaga, wiilashii waxa ay ku qasbanaadeen in ay meesha iskaga tagaan. Waa ayna iskaga tageen. Mid ka mid ah wiilasha ayaa waxa uu awoodi waayay in uu seexdo, isagoo ka fikiraya waxa u dambeyn doona haweeneydan miskiinta ah. Waa uu ka soo kacay sariirtiisa, waxa uuna iska beddelay dharkii, waxa uuna soo kaxaystay gaarigiisa, waxa uuna si degdeg ah u soo aaday xeebtii. Wiilkii dhalinyarada ahaa markii uu imaaday, waxa uu arkay gaari ambalaas ah iyo gaarigii booliska oo meesha taagan. Sidoo kale meesha waxa iskugu soo aruuray dadkii oo idil. Haweeneydii waxa ay ahayd mid naftii ay daysay ama geeriyootay. Markii bareesharka dhiiggeeda uu kacay, intii ay u cabsanaysay wiilkeeda in uu ku dhaco wax dhib ah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.